waxaan joogaa suuqa gaariyaasha waaweynka ah. Gaarigan laba qof deeqa kan waa laba qof. Kan waa xajiyad. Kan laftirkiisa waa laba qof oo deeqa. Gaarigan waa laba qof. Gaarigan kale waa laba qof. Gaarigan kale waa laba qof. Baabuurtan waa baabuurtii la isticmaali jiray 1960kii. Waa laba qof. Waa laba qof. Waa laba qof. Oh my god, kulligood waa laba qof. Sida u dhan yihiin oo dhan laba qof waaye. Waxa halkaan ka muuqdo dhan waa baabuur oo xilli hore ah. Baabuurtan markii hadii aad ku raadisidina gadid lama heli karo qiimahooda waa qaali laakiin waxa ma tarayaan. Tanna waa cagaf oo noocyada ugu soo horeysay ah. Yiris waay maanta waxay tari kartaa male. Gaarigaana waa gaariyaashii dagaalkii labaad ee adduunka lagu galay ama kii koowaad iska dheh. Waa Dodge Allah magaciisa. Jarmalka iska lahaa malaynayaa. Waa gaari baabuurta duqooshinka ah. Hadda wuxuu tari kara male. Hadda on isaga dhex wareeg. Wala looda xataa balka looguma qaadi karo hadda. Iska dhex wareeg xataa ma dhama. Gaarigan magaciisa hal iska rabaa ani garan maayo. Aniga weligay ma arag gaarigan quruxda miirana. Waa wareeg qurux badan ah. Gaarigan weligay ma arag. halkaasna gaariyaal kala ka muuqda. Kanna weligay ma arag isagana. Baabuurtaan dhan waa baabuur cusub waay. Kan waa mid ugu cusub. Midkaan dhowr jeer waa arkay laakiin gaari haddaan xasuusto ma ahan. Kanna gaari aan hadda garanaya ma aha. Matoorkoodan fiirina bal. Kan matoorkiisa saan waay. Waa cusub yahay. أنا قيبتها سان كجرنا متورك قيبتها سبحان الله كبير الله قيبتها ترجع وكان رايتوري وكبيه لوش بيجري شان ذي مستي وقشن كسر بيجري وتاس ديني بدي وتاس قارين والله وتاس تعتمى وروح اللي بسطن كور صدح بسطن النعانة صدح بسطن النعانة واي أوكي بابورتنا دن روفر الله كان مقعيس gaari yar asaga laftirkiisu waa laba testato waa 6 Boston laftirkiisa British Motors Allah British Motors gaari yar waay midkaan da aragtaan Ferrari baad malaynaysan laakiin Ferrari ma aha wax kale baabuur ayaa maanta Det er dejligt. Autos. sida hogosha roobko ama hilacguyo da'ay hoobaan bislaatiyo wada biyaysan. maanta waxaan joogaa maktabadda waxaan fiirinaynaa Soomaalida buugtooda eedan dadka dhan baa iska leh Soomaalida kaliya ma leh anagu dhan baa leh oo anigu ku jiro ayaa iska leh
waa maktabad aad u weyn laakiin soomaalida buugteeda waxay noqdeen intaan keliya dhowrkan buug oo weliba iska yaryar oo dhammaantood ka sheekeynaya kan hadda ugu weyn aan soo qabano muxuu ka sheekeynaa diiwaangelinta maasooyinka uu ka sheekeynaa haye maxaan kaloo soo qabanayaa kale kan guduudka bal muxuu ka sheekeynaa selfkiisaan soo qabano weyn ismaaciil si ubax baa la yidhahdaa magaciisa gax I don't know wuxuu ka sheekeynaya si ubax waa jacayl buu ka sheekeynaya dabcan haye kan kale bal guduudkaan soo qabano guduud labaad okay wuxuu ku leeyahay qiso kanuunuc iyo gasiin waa xaaraanta soomaalidu ka buuxa qalbigooda ku sheekeynaya iyo xaasnimada kan kale guduudka aan fiirino mar la arag waa sheeko ku saabsan haasaawe ama jacayl waxsaas wax macnaa ma leh marka buugta oo dhan waa intaan mid professional kana ay u yar eg wax professional u eg buluuga ah balan fiirina asagana dadka degan Denmark uu ku leeyahay buug tixraaca oo ku saabsan bulshada Deenishka wuxuu ka sheekeynaa kana dadka Deenishka dabcan kana ugu rombaan isleeyahay oo bulsho kale ka sheekeynaya laakiin waxaa laga yaabaa buugta caynkan kale taa bulshooyin kale ka sheekeynaya waa translate buugaag ah wuxuu yiri Deenishka loogu talagalay dadka cusub waa luqadda Deenishku macnaha dabcan uu maaragtay ku saabsan yahay waa Soomaali dhamaantiis laakiin duugista iyo wuxuu ka hadlayaa tusaale Denmark sida dadka loo duugo kale duugistu ka hadlaya meesha wuxuu leeyahay caadi ahaan qofka dhinta waa in la aaso marka wuxuu ka sheekeynayaa qaababka loo aaso dadka ma waxaa loo aasaa ma la gubaa ma meel baa lagu ridaa ma la soo qufaa waxyaaba caynkaas oo kale marka waa cajiib weeyaan buugta dhan iyo noo kaydsan waa wax sidaas oo kaleeta dhammaantooda kan waxaa la magaciisa warsan iyo warhayn marka waa cajiib weeyaan ummadan oo buugta u yaala yihiin sheeko kaliya wax cilmi xambaarsan aysan ku jirin waa dhibaato marka Soomaalida waxaan leenahay أنا xitaa kamid aan kuwaas meeshan waa qaybta sportska ee xiran sida banooniga gymka waxaan ka salaamayaa magaalada Bremen oo aan safar ku ahay train ayaan ka degay train kale aan sugaya marka muddo hal daqiiqo ah muddo hal saac aan haystay marka waxaan isray new energy wada baahanta magaalada energy ka soo gado magaaladana soo dhaxmar oo soo duub marka baladka dhexdiisaan duubaya oo dhex lugeynaya baladkuna waa Bremen magaalo yar oo qurux miran ah hadda hore u maqashay Bremen waa maqashay hadii ay hadda kugu horeysana hadaba iska ogow roob da'aya kaamirada telefoonka isticmaalo roob da'aya Go Collective byder passagererne velkommen i toget mod Ribe, Tønder,